Suldaan Cabdirasaaq Axmed Ismaaciil Yuusuf oo ka mid ah madax dhaqameedka reer Somaliland ayaa bulshada Islaamka guud ahaan iyo gaar ahaanba shacabweynaha reer Somaliland waxa uu ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciidul Fidriga isagoo Alle uga baryay inuu barwaaqo iyo nimco iyo baraaro ku gaarsiiyo ciidan ciideeda waxaanu hambalyo gaar ah suldaanku u diray madaxda qaranka ee kala duwan golayaasha qaranka ciidamada kala duwan ee dalkeena madaxda dhaqanka iyo sidoo kale bulshada uu suldaanku yahay suldaanku waxaanu sidoo kale uu suldaanku duceeyay dadkii dhibaatada baaxadile ka soo gaadhay suuqii gubtay ee waaheen magaalada Hargeysa isagoo Ilaahay uga baryay inuu Ilaahay cawiliyo ciwad khayr qaba siiyo suldaanku arrimahaasi ka hadlayay ayaa waxa uu yiri الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مقاعيق وسلطان عبد الرزاق حاج أحمد إسماعيل waxaan doonayaa inaan halkan salaan qaaliya uga diro ciid al-fidrida oo ah maalin aad iyo aad qulubta muslimiinta ugu weyn madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland Master Muuse Biixi Cabdi iyo reerihiisa iyo caruurtaba aad baan u salaamayaa waxaan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka Saylici Cabdiraxmaan aad baan u salaamayaa isaga iyo reerkiisa iyo caruurtiisaba waxaan salaamayaa dhammaan golayaasha qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee kala duwan golaha guurtiga iyo golaha baarlamaanka waxaan salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee kala duwan iyaguna sida booliska militariga iyo waliba ciidanka debdemiska oo aad iyo aad aan u jecelahay oo niman intii u dambeysay shaqo aad iyo aad u badan qabtay aad baan u salaamayaa waxaan salaamayaa shacabweynaha jamhuuriyadda Somaliland meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba oo aan leeyahay kullu caam wa antum bikhair ciid al-fidrida waxaan salaamayaa beesha qaaliga ah ee suldaanku ahay beesha Cabdallah Bakar Saad Muuse aad baan u salaamayaa beeshaydana waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair insha Allah ciideeda Ilaahay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxa kale oo doonayaa inaan salaamo dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaanba ciid al-fidrida awgeed aan ku salaamayo ciid wanaagsan dhammaantiinba dadka muslimiinta waxaan kaloon salaamayaa dhammaan asxaabtayda inta muuqaygiyo dee aragaygaba garanaysa waxaan kaloon doonayaa inaan halkan ka salaamo akhyaartii aanu inta badan soo wada noolayn anigu waxaan ahay suldaan dalka iyo dibaddaba aad ugu nooloo inta badan dibaddana jooga gudahana jooga waxaan salaamayaa reer Sweden gaar ahaan magaaladii la odhan jiray inta badan ku wada noolayn Karlskrona oo dhacda koonfurta Sweden Stockholm caasimada aad baan u salaamayaa asxaabta iyo familiga iyo dadka jooga ehelka joogaba iyo Tabori sidoo kale aad baan u salaamayaa caasimada labaada maalmo kama maqnaa caasimada saddexaad aad baan u salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa caa'iladayda ama familiga waxaan salaamayaa walaaladay iyo waxay dhaleenba iyaguna caruurtan adeerka u hay iyo kuwa nabtiga u hay waxaan kaloo salaamayaa caruurtan dhaleen aabaha u hay ee Sweden degan iyo kuwa Hargeysa joogaba iyo xaasaskaygaba aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay dhammaantiinba salaan kalgacaltooyo oo cariga Hargeysa idinka timid ee Somaliland baan idinku salaamayaa salaanta islaamka ciid al-fidrida waxaan idin leeyahay kullu caam wa antum bikhair ciid wanaagsan bishii barakaysnayd ee Ramadaan baynu ka soo baxnay Ilaahay acmaashii wanaagsaneed ee sameeynahay noo aqbalo salaadii roob doontahaydaynu tukanay Ilaahay waa ka roobkii noo shubay oo raxmaadkii maanta waa daayaan dalka dhanna wuu hayaa Ilaahay waxaan ka baryayaa inaynu ka faa'iideysano raxmaadkaas oo baahida wax lagaga baxaa gacmo hoorsi lagaga ma bixi wax lagaga baxaa oo kaliya in maaragtay maxay gacantada biyo lagaga dhargaayay qof kastooba in maaragtay maxay hayday aynu tabcano kii xoolo sameynaya xoolo dhaqaya iyo kii beer qodanayaba waa inaynu ka xorownaa oo aynu baahida cagaheena kaga baxnaa haddii Ilaahay dhahdo intaasaan ku boorinayaa dhammaan shacabka Somaliland meel kasta ay joogaan dalka oo aynu dalkeena wax gashanaa dibadda wax ka doonaa ammaanka isku waxba inooma qabanayso waxaan Ilaahay uga baryayaa iyagana masiibadii ka dhacday ee suuqa waaheen in Ilaahay cawl khayr qaba Ilaahay uu siiyo dadkii halkaa ku waxyeeloobay insha Allah tacaala Ilaahay waxaan ka baryayaa in maaragtay maxaa ahayd cawl khayr qaba aad heshaan
wixii annagu hoyliyo hoobana la hagran maayo ka salaadiin ahaan waxaan halkan ka caddaynaynaa in haddii ilaahay yidhaahdo wixii aanu annaguna hawsha dhinacayaga aanu kaga jirno ilaahayna haydin boogadhayo waxaan kusoo gabagabaynaya waan aad u salaamayaa salaadinta khiyaartayda ah ee hargeysa joogta ama dibaddaba joogta ee bahda dhaqanka kulul caam wa antum bikheer waa suldaan cabdirasaaq oo idin leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu rashiid baarcad eryal t v hargeysa.